بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلو عن وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee Bahda TV oo idin hayo qodobada ugu door korona waxa ka mid noqonaya hubiyaal lagu weeraray xarunta xalana oo shir uga socda madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa qodobada sidoo kale aad maqli doontaan oo aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay shirka ka socda xarunta Afisiyoni oo maanta galay maalintii afraad haddaba maanta maxaa diiradda lagu saarayaa shirkaasi waan eegi doonaa qodobada sidoo kale aan idin hayo waxa ka mid noqonaya sargaal ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo lagu dilay qarax miino oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho Jubbaland waxa ay sheegtay inaysan saameyn ku yeelan doonin ku biiritaanka dawladda ee wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaan idin hayaa saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay janaalkan si ay markasta ku soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee Bahda TV rukumo oo subscribe saar siina faafi oo la wadaag dhammaan asxaabtaada waa tahay saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay haddii aan ku bilaabo inta la xaqiijiyay ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhimatay 5 kalena waa ay ku dhaawacantay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xerada xalane oo ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 ruux oo isku qoys ah kuwaas oo madaafiicdu guryahooda ay ugu tageen sida ay markaasi Bahda TV u xaqiijiyeen goobjoogayaal ka agdhow xerada xalane ee magaalada Muqdisho weerarka waxaa ku dhintay 2 ruux kadib markii madfac uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada Wadajir gaar ahaan waaxda xalane aabihii qoyska iyo wiil yar oo umul lagula jiray ayaa dhintay waxaana dhaawacmay 3 ruux oo isla qoyskaasi ah ayuu yiri goobjoogaha la hadlay Bahda TV oo magaciisa diiday in loo adeegsado warbaahinta laamaha ammaanka Soomaaliya wali kama hadlin weerarka madaafiicda ah ee lagu qaaday xerada xalane ee magaalada Muqdisho waxaana halka weerarka lagu qaaday shir uga socda madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee taabacsan haddii aan ka soo gudubno wararka ku saabsan madaafiicda lagu weeraray xerada xalane waxaa maalintii afraad shir uga socda teendhada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho shir hal dhinac ah oo u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble madaxda Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan oo bilowday maalintii Isniinta ayaa waxaa looga hadlay khilaafka doorashooyinka iyadoo ay ka maqan yihiin madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu ka soo horjeeda hanaanka ay dawladda waqtigeeda dhamaaday ay doorashada ku wajahayso waxaa maanta la filayaa in shirkaasi looga hadlo sugidda amniga doorashooyinka oo aan wali lagu heshiinin waxaana warbixin looga dhageysan doonaa guddiga amniga qaranka ajandaha shirka ee maanta ayaa ku qotoma arrimaha ammaanka doorashooyinka waxayna madaxda ku shirsan Afisiyoni iyo teendhada aadka loo ilaaliyay ammaankeeda ay horay markaasi uga doodeen is-afgaradkii lagu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ay soo gudbiyeen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka dhinaca kale sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan wafdiga maamulada Puntland iyo Jubbaland ee ku sugan xerada xalane ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan wakiilada beesha caalamka ay markaasi la shiraan 5 maamul goboleed ee dalka ka jira wararka aan helnay ayaa sheegaya in beesha caalamka ay doonayso in marka hore la xaliyo tabashooyinka u dhaxeeya hogaamiyaasha maamul goboleedyada ka hor inta aysan la kulmin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan oo lagu waday in gelinka dambe ee maanta uu dhaco
ayaa waxaa fashiliyey farmaajo kadib markii saaka aroor hore uu tagay afisyooni kuna qasbay saddexda madaxweyne ee taabacsan dowladda in ay markaasi ku biirin shirkaasi la qorsheynayo. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho, kaas oo geystay khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac. qaraxa oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay laamiga cusub ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, iyadoona lala eegtay sargaal ka tirsanaa militariga dowladda Soomaaliya. wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in qaraxan lala beegsaday gaari saarif ah oo markaasi uu la socday sargaal magaciisa lagu soo koobay Cali Bariis iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa, kaas oo markaasi la soo wariyey inuu ku dhintay qaraxaasi ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, iyadoo sidoo kale dhaawacyo culus qaraxaasi uu ka soo gaaray askartii la socotay. sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo kale oo ka tirsan militariga oo ka agdhowaa halka uu qaraxu ka dhacay ee degmada Dayniile, kuwaas oo meedkooda iyo dhaawacyadooda halkaasi ay ciidamadaasi ka soo qaadeen. laa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo ku aadan weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa. al-shabaab ayaa inta badan weerarada nuucan oo kale waxa ay ka fuliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo duleedkeeda, kuwa oo kordhiyey maalmihii lasoo dhaafay weerarada qaraxyada, gaar ahaan miinada soo boodada loo yaqaano oo lagu dhibaateeyo askarta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka ayaa maanta mas-uuliyadda amniga degmada Afgooye waxa ay kala wareegeen ciidamada AMISOM ee howlgalka midowga Afrika kadib markii xaflad lagu maamuusayay munaasabadaasi lagu qabtay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. xafladaasi waxaa ka qayb galay saraakiil uu ka mid yahay taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Tahliil Biixi, ku-xigeenka taliyaha AMISOM, taliyaha qaybta 12 Abriil ee xoogga dalka, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas-uuliyiin kale. taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in maanta ay AMISOM kala wareegaan amniga degmada Afgooye, isaga oo AMISOM uga mahad celiyey gacantii ay ku lahaayeen sugidda ammaanka Soomaaliya. General Shume oo ah ku-xigeenka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in tallaabadan ay markaasi ku jirtay qorshaha kala guurka oo dhigayay in ciidanka xoogga dalka ay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka. dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixisay sidii tababar iyo qalabeen loogu sameyn lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ula wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka. ugu dambeynna wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo u waramay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ka hadlay heshiiska dhex maray Cabdirasiid Janan iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. wasiirka ayaa wareysigan ku sheegay in go'aanka wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirasiid Cabdinuur Janan uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin Jubbaland, isla markaana uu weli sideedii yahay mowqifka Jubbaland ee gobolka Gedo. Janan waa wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka Jubbaland. muddo dheer ayuu Jubbaland u soo shaqeynayay dowladdu, iyada ayaa mar xirtay oo tiri waa dambiile, haddana iyada ayaa diyaarado iyo sidoo kale wasiiro u soo dirsatay, isaguna go'aankaasi waa uu qaatay. laakiin Jubbaland mowqifkeeda waa sidii hore, ayuu yidhi wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland. Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa soo hadal qaaday waxa ay Jubbaland kala socotay wada hadallada Janan iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in waqtiyadii ugu dambeysay ay ka warhayeen, balse go'aanka uu ahaa mid dhacay oo ay markaasi wada gaareen labada dhinac, waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirasiid Janan. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Jubbaland ayaa hoosta ka xariiqay
in heshiiska wasiirkii hore ee amniga Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya uusan saameyn ku yeelan doonin maamulka Jubbaland isla markaana shaqadu ay halkeeda ka sii socon doonto ciidamaduna ay joogaan meelihii loogu talagalay. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay Cabdirashiid Janan oo muddo dagaal kula jiray dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo dhaweeyay gudaha magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo kadib markii heshiis uu markaas la gaaray saraakiil ka socotay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee markaas ka tirsan dowladda Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Beled Xaawona waxa ay sheegayaan in wafdiga xalay ay halkaasi ku hoydeen isla markaana la filayo in maanta halkaasi ay kulamo ku qaataan. sidoo kalena waxaa qorshaha uu yahay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda oo halkaasi ku sugan in wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ay u soo gudbin doonaan magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamada uu watayna ay la wareegayaan dowladda federaalka Soomaaliya kadibna lagu biirin doono ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka Gedo isla markaana ay noqon doonaan ciidamo ka tirsan dowladda mushaarkoodana markaasi qaata. guud ahaan saaxiibayaal wanaag inta wararkii warbixinadii ugu dambeeyay oo aad kala socoteen Bahda TV